حب ضها يصداب كل أرض ليس فيها حب النبي الله هي الخراب وكل قلب ليس فيها حب. لكن أهمية دينا درين طب محي بل إلهي بنكون دارية الصحابة دي أردن وهبين كهرداد الذي وايي ونول بوحولي عمر ولي مدحنيمه مرادين إلا هبين كان مويان ولي مدحنيمه مرادين إنت يعني فرضيه لفوله يراعي guurkiina aan makasanin ilaahay khaatimadiina u suubiyayo nabigu meydkiisa intuu baarbaaray labada indhood intuu ka dhunkaday nabigu oran jiray ilaahay oo inaan jecelahay maqraatika oo rasuulku oran jiray calayhi salaatu wasalaam fi athar alqawmi fadalat bihi masafatun wa iqtifa yani waxaan ahaa mid ku dayda athar alqawmi dadkii nabiga jecelaa qoomka raadkoodan ku dayin jiray fadalad waxay igu dheeraatay masaafadii ay gooyeen baa igu dheeraatay iyo waqtifa dayashadii baa igu dheeraatay alxamdulillahi alladhi manna alayna بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبولادته فينا وجعله رحمة للعالمين صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا علم الهدى عذرا لك يا رسول الله ما عظمناك حق تعظيم عليك وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله ولا ليال وقتك ولا له سيشجعان ماشونا أيار كلوشه ولو كريلك يجهدك يرمتي عن لبعضها نبي جعلك صلى الله عليه الصلاة والسلام كل جذا يتهي أجري يوحد قيمه سإلهي ويقدرك سونا جرن كريم بنو آدمكم حتى أنا وحرم إن شاء الله تعالى إن الموضوع صوغ قابيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام waxaan ognahay aimada muslimiintu markay ka hadlayaan waa wax u baahan casharo iyo cibrooyin dheer oo waqti weyn u baahan maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam in laga hadlo waxaan rabaa muslimo inaad ogaato ama ninka muxibka ee nabigiisa jecel waad ogaato calayhi salaatu wasalaam afar shay waa kugu waajib waana waajib shariicada nabi maxamed ay rumaysan tahay sallallahu alayhi wasallam calayhi nabigaaga inaad tacdiimiso waa kugu waajib nabigaaga inaad barato dhahdo man huwa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed waa shakhsiga inaad dhahdo waa kugu waajib wixii jaanibka nabiga ku tacalluqa inaad barato nabigaaga inaad difaacdo ilaa intaad adduunyada joogteed rumaysan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kugu waajib sallallahu wasallam calayhi akhiiran inaad nabigaaga jeclaatana waa kugu waajib sallallahu wasallam calayhi waxaan inaan ku furo insha Allah taala maqaalkayga kelmad uu yiri sheekhi weynaa Dr. Ali Jamaal mufti diyaari Masra sheekhi weynaa runtii aan muslimiinta oo dhan waalidka waa waqtigiisa wuxuu yiri hubbu daha yusadab kullu ardin laysa fiha hubbu an-nabiy illahi al-kharab wa kullu qalbin laysa fiha hubbu muhammadin lahu adh-dhubab yani nabiga jacaylkiisa waa la isku diibeeyaa oo waa la isku udgiyaa nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam ardo walbo nabi maxamed laga jeclayna waa ardo kharaab ah oo dunsan oo macna aan lahayn buu qalbi walbo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ku jirin kalgacaylkiisuna asna waa la dubaabun daqsi weeyaan buu sheekh yani daqsi wax macnuu leeyahay ma jiro waa qalbi faaruq ah oo maran buu ka wadaa waxaan rabaa marka insha Allah taala inaan isdul istaago nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam xukun buu leeyahay fawaa'id buu leeyahay calaamaduu leeyahay yani marka makaaniyaad buu leeyahay ilaa 7 qaybood baa looga hadlaa kalgacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii laga hadlayo salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaan rabaa keliyata inaan caawa ka hadlo qofka muslimka ah faa'iidada iyo qiimaha iyo qadaayaadka ugu sugan nabiga hadduu jeclaado calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay waqtigu ima saamaxayo intaa kale inaan camimo ee waxaan rabaa uun haddaad nabiyullaahi maxamed jeclaato calayhi salaatu wasalaam maxaa ku sugan jacaylkiisa sala allahu wasalam calayh maxaa ku sugan jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam awalan walaalayaal waxaa ku sugan nabiga jacaylkiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi kamaalu iimaani lmuslim qofka muslimka iimaankiisa meel kaluu ku dhammaystirmi male ilaa qadarka uu ka jooga nabiga jacaylkiisa mooye calayhi salaatu wasalaam waxaad garanaysaan xadiidkii alimaam bukhaari uu warinaya raxmatullaahi calayhi ee uu ku soo qaadayay kitaabu al-aymaani wan-nuduur nabigu maalin magaalada madiina asagoo jooga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu hishaam sida uu warinayo
ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qabtay saxaabigii jaliilaha gacantiisa jaliilka ahaa ee la odhan jiray cumar ibn khadaab khaliifkiisana ah wuxuu kala dhex baxay saxaabadii rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayh markii cabbaar la socday oo uu leeyahay intaan nabiga miciisaan ahayn cabdullaahi ibnu hishaam sida uu kitaabka bukhaari uu soo qaadayo ayuu nabigu hoos ula hadlay saxaabigaasi markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow wallahi inaan kaa jeclahay shay walba ilaa naftayda bayna jambaya ah mooyaane kolkaasuu nabiguna hoos ula hadlu wuxuu yidhi laa yatimu imaamuka iimaankaagu taam maaha weliba dhaar bay riwaayooyinka qaarkood raacinayaan kolkaasuu haddana la hadlay ugu dambayn wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow waan kaa jeclahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay naftayda allatii bayna jambaya naftayda labadeeda dhinac u dhaxaysana waan kaa jeclahay kolkaasuu nabigu xadiidka bukhaarigu suu tilmaamaya wuxuu nabigu al'aana yaa cumara hadda unbuu iimaankaagu dhammaystirmay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam fi lbukhaari idan markaa biduuni maxabati maxamedin sala allahu calayhi wasalam nabigaagood jeclaato adigoon jeclayn iimaankaagu haddaad xataa jacaylkaagu uu 50-50 yahay oo hooseeyo iimaankaagu ma dhammaystirmin waa inaad nabiga si buuxda u jeclaato si iimaankaaguna u buuxsamo oo daaqadaha ka dhiman ay u buuxsamaan nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam in badanna culimmadu way ka hadlaan masaladaas oo haddaba shariifku uu soo qaaday yacni markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku xidhan baan leenahay markaa iimaankaaga midda labaad oo yacni markaa ku sugan nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxay dhahaan waa qodobka yacni markaa muhiimka ah ood mar walba adiguna daydayayso waxay dhahaan rasuulullahi yuxibuka yacni idaa axbabta rasuulka ilaahay markaad jeclaato oo uu jacaylku kaa dhaboobo adigana nabigaa ku jeclaanaya sala allahu wasalama calayh qaadulciyaad baa arrinkaa daliishadayoo wuxuu u daliishaday xadiidka alimaam muslim uu saxiixiisa ku soo qaadayey oo nabigu lahaa yacni markaa ina uxudan jabalan yuxibuna wa naxnu nuxibuhu iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam buurkaas waa jabal waa buur annaguna waan jecelnahay isaguna waana jecel yahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ya adigoo banu aadan oo karaamaysan markaad nabigaaga jeclaata maxaad u malayn calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu garan jacaylkiisa inuu nabigu ku jeclaanayo xadiidkii cabdullahi ibni cuhmaan ay yacni marka saxaabigii jaliilka ah oo nabiga suxbada hoose lahaayeen oo mar walbuu nabiga u yimaada nabiga farax gelin jiray oo ka qoslin jiray calayhi salaatu wasalaam day markuu khamrada cabay oo haddana ku dhacay saxaabadu ay jaldiyeen ee weliba uu cumar nacdalo uu yidhi allaha ku hoojiyo cumar uu yidhi nabigu wuxuu yidhi dacuunii wa fii riwaayati albukhaari maxay ahayd dacuuhu fa wallaahi maa callimtu ilaa inahu yuxibu allaha wa rasuulahu buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wariidaaya oo ka taga ilaahay baan ku dhaartay kuma ogi ilaa ilaah iyo rasuulka inuu jecel yahay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam de nabigaa jeclaaday soo ma ah waxaan yimid ee yani mushkiladan timid jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka badbaadinaya sala allahu wasalama calayh soo ma aragti idan markaa walaalayaal waan soo koobayaaye nabiga calayhi salaatu wasalaam ood jeclaato waxaa ka laazimi khayru khalqillaahi oo ku jeclaada calayhi salaatu wasalaam hadduu asagu ku jeclaadana haddee yacni khalaas nabiyullaahi maxamed oo ku raba calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin adduunyada madaxweynayaasha jira haddii lagu dhaho mid baa ku jeclaaday yaa waxaan hadda maanta jooga yacni wax weyn baad u arki laysoo ma ah dunida axadkii laga doortay hadduu ku jeclaado maxaad u marayn sala allahu wasalama calayh bitaali walaalayaal waxaa ka mid a qodobka saddexaad oo nabiga jacaylkiisuu ku dhexashiin kara calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeyaan waa inaad ku sifowdo horta waa ahmiyatu saxaaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waa saxaabada ahmiyadoodii iyo shicaarkoodii shicaarkii salafka saalixa oo igu fadli badnaayeen saxaabadu dharkoodii iyo labiskoodii inaad si toosa u xidhato yaa ka dhalan haddaad nebi maxamed jeclaato calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabada jacaylkoodu ahmiyad kale oo mayna lahayn afkaarta ugu weyn jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam mithaal yar haddaan idin siiyo xadiidkii bukhaariga ku sugnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen isagoo gurigiisa jooga ayaa waxaa soo weeraray magaalada madiina nin gaal oo marxab la odhan jiro oday weyn oo yuhuudda ka mid ah markuu soo weeraray odaygii ayaa waxaa dhacday rasuulka sala allahu wasalam calayhi ninkii markuu soo weeraray marxab ahaa magaalada madiinaad ayuu habeenkii nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan buu bixiyey qadan ya'khudu raaya rajulun yuxibu allaha wa rasuulahu buu nabigu calayhi salaatu wasalaam berri waxaa qaadi doona raayadda muslimiinta iyo calanka muslimiinta nin ilaah iyo rasuulkaba jecel buu nabigu calayhi salaatu wasalaam day ilaah iyo rasuulku jecel yahay waa dheef weyn saxaabadii nabiga waxaan xadiid wuxuu warinayaa kutuba sirna ay warinayaan habeenkii inay guriga nabiga isku xeerareen calayhi salaatu wasalaam khaasatan weliba cumar bin khadaab wuxuu yidhi habeenkii inaan isdheereeyey isgaabiyey qoorta taagay anoo isla ban halka kelmada ee nabiga calayhi salaatu wasalaam armaad ku guulaysataa yuxibu allaha wa rasuulahu armaad noqotaa wey
يا عمر بن الخطاب وكوري قال وحول بو سميي أرورنimadi dambe fagaaraha markii loo baxay ayuu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ya ayna ali ibn abi talib way wakiil la keeni jiray isagoo xanuunsan yahay la yiri markii loo sheegayna bishaaradii ugu weynayd buu arkay markaasuu laba saxaab intuu soo kaxaysay buu yiri hogaamiye xanuunkan iyo mushkiladan labada indhood dhowr iyo 10 bari ba indhuhu gududnaayeen xataa indhihiisa la arki waayay ما أركب مشكلة عن نوع عسل لأن هم يسوون وجعلك النبي عليه الصلاة والسلام قبتي بو يمد نبي عليه الصلاة والسلام صار وينك قارك شيء يعني عنده كمرية وأنا عارف ماضي مركز عدنا أسوأ كلمة دي دناينا يواك راية قائدين المسلمين تنا إلهي كعميس كفر رجال علي بن أبي طالب وحنا توقد الله ما هاينا إن الصحابة النبي جعلنا عليه الصلاة والسلام سيد علي وكلينا إن الرسول هو جعلنا عليه الصلاة والسلام لكن أهمية دينا الدرين طب ما حي بل إلهي بنقول دارية الصحابة دي أردن وهبينك هردada الذي waayay oo nin walba wuxuu leeyahay Umar waligay madaxnimo ma raadin illa habeenka mooyaan waligay madaxnimo ma raadin jacaylka nabiga iska daa waxay u qabaanay waxay saxaabadu jeclaayeen haday qadarka Ilaahay gacanta ku hayaan maalintii Nabi Maxamed geeriyooday inay geeriyoodaan xadiis Bukhari warinayo ay Bakar oo laba inuu haynaa oo Bukhariga ku sugan intuu Aisha iyo Aisha maanta waa ayaama waana xanuunsan yahay sakaraatu mawdkii baa haya waxay leedahay waa isniin waxaan jeclaan lahaa ayadoon gabagoobayn Ilaahay inuu qibdoodo waa yoomkii nabiga alla qibdooday ya balday hada oo leeyahay nabiga maxaad ku kafanteen maxaa lagu kanfay saddex mariyo anigana taga suuqa saddexdii maro uu soo iibiye yani waa jacaylka nabigu meeshu ahmiyada uu ka taagnaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin walaalayaal nabiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu sugayo waxaa ka mid ah culimadu isku raaceen yani markaa dukhulul janna jannada inay ku xalaal noqoto oo ay ku diib noqoto hadaa doonayso kun muhibban ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam jacalow nabiga nacmada iyo jannada wixii aad yani ku haminayso ee ilaahay uu ku yaboohay waa lagu xalili waadan makansan jacaylka nabiga aad ku makansan alayhi salaatu wa salaam aan soo qaadna xadiidkii shamaa'il muhammadiyo warinaya imaam tirmidhi alayhi rahmatullah waxaan garanaynaa abu dalha saxaabiga weynaa jaliilka ee intaasoo 80 waran ku dhaceen ee waagi dambe kalxamihiisa caruurtu ku ciyaari jireen sida godadka ya haddana asagoo saasoo dhaawaca xadiidka alfaadiisa waxaa laga fahmayaa nabigoo meel fuulaya intuu isu ganay oo dhulka isu dhigay sidoo xadiidka la sheegaya halkaa dhexda intuu kaga istaagay mar dambe nabigu buurkii asagoo fuushan inuu saxaabiga oo meesha goglan arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay kalgacaylkiisu meeshu marayana muxuu nabigu yidhi wajabat iljannatu lidalxa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam jannadii waxay u waajibtay dalxata bin cubaydillaah يعني مركا وارنتي أهانا يعني أمتن سلف كذي خلف كذيبة وحي جنة كبادي قوبين جعلك النبي عليه الصلاة والسلام وحكم ذا ولا ليال يعني مركا وحيالها كسر النبي عليه الصلاة والسلام محبديسة ده وتنفيذ وصيته الكريمة نبي قدر دارن كيسي وينا عليه الصلاة والسلام ودر دار النظر رسول كوي بدنا يعني شريعة وكدر دار ما النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق ذا وكدر دار ما أحكام الشريعة يعني مركا أي عباداتك دردارنا رسولك أدب يكون قدسنا صلى الله وسلم عليه مركا وحا دردارا كما الدنبيسة نبي جعلك صلى الله وسلم عليه يا أذيبوا أولادكم بثلاث عنوض واحدين ووصية من رسول الله صلى الله وسلم عليه ورلمين كنت ربيا يا أخلاق قد صدح نبي جعلك سيء على بيت كانوا مجرة وحكمد النبي عليه الصلاة والسلام حياله لو قال يتلقى عيلكيسة يعني مركا تنالوا بمعيته نبي معيديسة آيات كم قال يساتي هذا يعني مركا حديث يعني مركا علماء خاصان وشريف شرحيوي يعني واكو النبي يقولها ومن حبني كان معي في الجنة هذا جعلاته يعني معيدي سادير رسولك عليه الصلاة والسلام لجرن كيسو وحوين بوسس كيسين هذا ليشو وقدام بين النبي عليه الصلاة والسلام وحيالها كم ولا ليال نبي محبيس وحيكون حديثنا يسا هيبة إيه يعني إن مسلمين تنلقى هيبة يستو كلامه ذا إلهي سوعري هذا النبي قد جعلان عليه الصلاة والسلام لأنه حنقرنا إنه فرس iyo reer Yurub iyo boqoradii adduunyada ee waqtiga ugu awood weynaa saxaabi yar oo reer furus oo dhan intuu yaani buudka kula tunto oo furaashka cagaha la galo oo madaxweynayaashu halka saxaabiyan hatta ciidan kale la soconin wuxuu xambaarsan yahay kalgacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam ya hal saxaabi oo galay madaxweynayaasha oo iyaguna ay khuduucayaan oo ay indhaha ka roganayaan baad arkaysaa wuxuu xambaarsan yahay wax kale ma hub iyo dad iyo jamaaca midna ma waa kalgacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam وحكم ولا يا الحسن الخاتمة وتقرنا إنسان حديث جليبي وورنا يعني ما مسلم صحيح يسوق سارة حديث جليبي وحها يعني صحابي يتقرنا إنسان يعني نبي جور كان تو كدم هاي جور كان نبي جور هذه وقدام بينا يا خير الله يا ركبي مركو مغلي أو إنده يعني فرديه لفولة يراعي
guurkiina aan makasanin ilaahay khaatimadiina u suubiyeyo nabigu meydkiisa intuu baarbaaray labada indhood intuu ka dhunkaday nabigu odhan jiray ilaahay oo inaan jeclahay maqraati ka uu rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam almuhim khaatimadana lama hayo qof nabi maxamed jecel oo ilaahay khaatimada ka xumeeyey abadal aabidiin ummadda muslimiinta ma soo marin markay jacaylkaagu khaalis yahay calaamadihiisii xambaarsan yahay adigana aad ilaahay rasuulka ugu dhowaanaysa kalgacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam ugu damay walaalayaal suu qur-aanku sheegaya waa wiqaaya min alfisqi yacni markaa fisqood u taqaanaan alkhuruuju can daacati illaah daacada ilaahay iyo istiqaamadoo laga weecdo waxaa gaashaankaa sida qur-aanka laga qaadanaya maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam aayadda abdu shariifku inoo aqrinayay waxay leeyihiin yacni markaa fisqiga iyo cadaabka aliimka ee loogu goodayo ataarikiina calaa maxabati rasuulillaah qolada ka tagtay maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay daliil u tahay qofka ilahay inuu kaga ilaalinayo ximaaye ay u tahay marka insha allahu tacaala taymkiiba igu dhacay sida aan hadda dareemayo waxaan idiin dardaarmayaa insha allahu tacaala maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam allah ina laazimiyo qalbigeenna si yacni markaa khaalisa oo dhab ah oo ilaahay lagu raaligelinayo maxabada nabiga kuwii qaata allah inaga yeela tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay haddaynaan walaalayaal dadkii hore gaadhaynin runtii ahaan waxaa la rabaa inaynu ku dayanno wuxuu yidhi busayri yacni markaa kuntu aktafi athara alqawmi fadaalat bihi masaafatun waiktifaa yacni waxaan ahaa mid ku dayda athara alqawmi dadkii nabiga jeclaa qoomka raadkoodaan ku dayan jiray bu fadaalad waxaa igu dheeraatay masaafatun masaafadii ay gooyeen baa igu dheeraatay iyo waqtifaaun dayashadii baa igu dheeraatay marka habadtaasi jirto laakiin xagga kale hadalka sheekha waxaa ka mid ahaa xabida almudrijuuna qiba siraahum wa kafaa man takhallafa alibdaa'u yacni markaa mudrijiintu waa kuwa ku guura galay daacada ilahi iyo maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ku mahadiyeen laakiin ciddii dib dhacdayna dibdhicu way ku filan tahay buu dibdhicu wuu inagu filan yahay haddii maxabada nabiga laynaga helo calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloon idin dardaarmi walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam kutubta ku tacalluqda shareecada yacni khaasatan inta nabiga jaanibkiisa ku tacalluqda walaalayaal si weyn ha loo barto gaar ahaan kitaabkan laga qoray oo cizidiin ibn cabdisalaam uu qoray bidaayat asuul fii tafdiili rasuuli sala allahu alayh waali wasalam الشفاء في تعريف حقوق المصطفى شمائل المحمدية أخلاق النبي والكتب النبي جانب كي سكاه الله عليه الصلاة والسلام بل يرى هلا برتو هلا لقفا إذا إن شاء الله تعالى حقوق ذو النبي نقول له عليه الصلاة والسلام تصار دين دردار من هذا وبالله التوفيق وصلي وسلم على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه